الله عيدا عيدا عمري درب برواقيو عافي ما تقرنا الله عيدا عيدا عمري درب برواقيو عافي ما تقرنا عافي ما تسن نقول عيدا عيدي فرحيدا عفك سامحاديدا علي نبديدا عادل كان نقصي ما عافي ما تسن نقول عيدا عطب يا سلام عرسي بقودانيسا عنديقا حنان راعي وعيدة عيدة عيدة وعيدة عيدة عيدة عفي متصل نقول عيدة عيد موارق دمان أمد إسلام كميل كستو يشوكتو وحن ليهاي عيد موارق كارهان ummadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalka dibadiisa iyo gudihiisa waxaan leeyahay ciid muwaarig waxaan kaloo halkan leeyahay ciid muwaarig madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida iyo dhammaan ciidamada qaranka ee kala duwan iyagana waxaan leeyahay ciid muwaarig shacabka gobolka Saraar gaar ahaan كدقمة هدير عينبا وحن لا عيد موارق كل عافية كل عام وأنتم بخير وحن لا سنة كيسة إلى أي برواقية بش ينكو جارسيو مركا أنت عيد كلا دم عيد كبعدي وحن لا ضدك وحنو شيء ناين يكبر السنادان وقادان حموكا لو دا يشعائر الإسلام كي اللي وينين تري اللي سوسو بحي تري يعني مغلين جديدة هير قرن إما دحين كحجينكو كي هاي قدوميا دتك وحدن كماله دتك دنتي سوون بوشيء ساي وحبا يك وجمة تراني لكن بالشدة تذال كذا وضع وعلى يا جارهان قبل كسرار وين جبر الركسنا هذا حموك وما الله سوي من يكون عيد فرنا يا شحيا يكون جدارة تشوي يكون مقاحية تشوي أي كوكرة تجان وعلى توجي وحيابه حكومة إلى هاي كذي ترى واحد بالله توجي وإنك شعائرتي قرون كأنه كوكب سنكري ويني إلا توجي حنون كأوجد ما أنت هذين من سنة كان مقاحدنا سووا تقولوا شعائرتي إسلام كانوا توجي نصور دبعتها وإن تلاقي الدكتور لما عدونا سنتات كين بدو حلاقوا يشيقوا ورهلا مغلو حكومة ضيا وأميرتا كسو بحث وينوضن دمان بي شعب كسومالنا نوردن ودن تاي وحالا سو جيدينيا هلا مغلبان لنا وهلا قاطو وانا ذا وحا موبيلاتيتا وحا واد كدغيسانيسا نو تي في كستا و كهادليا oo moobilada fariintii ku duuban tahay war halla qaato waa laga digtoonaado waa lagu facayaa wuu ku jiraa wadanka oo dhan hal laga digtoonaado oo dadku dareenka ha kiciyo عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك قبل خسرار ضمان وعنكم السلام يا سلام قاره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كبعدي عيد مبارك عيد مبارك ميل كسته oo gobolka Saraar kamida waxa ay fuliyeen amaamiirtii ay soo saartay gudida ay soo saareen cid wal oo gobolka Saraar kamida waxay ku tukatay guryahooda ayay ku tukatay maxaan ku dhahdayay amaamiirtiina way fulisay culimadana horseed ka ahayd markii aan u sheegnay iyaga mikrofoon la dhex qaaday amaamiirtu say tahay ay fushay tii gaadiidka
transportka ama dalxiiska kolley xaggan saraar cidina uma soo dalxiis tagto cidina kama dalxiis tagtaay baabuurta yaryarna sidii loo joojiyey ayay amaamiirtii ay u qaateen oo taasuna sideeda ayay u fushay gobolka saraarna waxaan aad ugu ammaanayaa nabadgelyada way nagala shaqeeyaan waxaan se aan ku dadargelinayaa gaadiidka dhuxusha ee saraareed maadaama ay baxday rabadaan waxaanu ku qaadaynaa haddii ay ka dhigo olole xoogan ayaanu ku qaadaynaa maanta ay tahay maalin farxadeed ciidul fidri waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda reer Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka gaar ahaan waxaan salaamayaa shacabka gobolka Saraar dhammaantood meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan baryaynaa isagaa raxmaana isagaa wax keena waxna qaada waxaan ka baryaynaa xanuunka aafada ah ee safmarka ah ee adduunyada haysta inuu naga ka qaado adduunyada isagoo maanta maalintii koobaad adduunyada intaan noolayn maalintii koobaad ee aan la isugu soo bixin garoomadii islaamka ku tukan jiray ay tahay waxaanu leenahay ilaaha raxmaanka waxaanu weydiisanaynaa annagoo bisha rabadaan khayrkeedii iyo ka baryayna inuu naga qaado xanuunka meel kastoo islaamku joogo uu ka qaado waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahu naga qaad waxaan ka salaamayaa saxaafadda gobolka Saraar Salebaan Cilmi Siciid iyo cali aadan dirir cali taani waxaan leeyahay waa shaqaysan gobolka ka shaqaysan mabruuq baan ku leeyahay mabruuq insha Allah bulshada gobolka Saraar waxaan u baaqayaa inay u hoggaansamaan gudida heer qaran amaawirta ay farayso shacabkeeda ayagoo daneynaya oo dawlad xukuumadeedii waxaan leenahay u hoggaansamo oo iska ilaaliya wixii ay fareen qaata oo meelaha la badan la isugu imanaya la iska daayo waayo waxna waa aafo danta xukuumadda wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyada Ilaahay noo keenay iyada aynu dooranay amaawirta ay bixinayaan ee jeedinayaan aan qaadano ma leeyahay shacabka reer Somaliland gaar ahaan gobolka Saraar waxaan leeyahay qaadano Raxmaan Raxiim ciid mubaarak كل عام وأنتم بالخير دمان مدة مسلمين كامل كستي جوجان وحلا عيد مبارك وحنا عادي وتهنيدين يا وسيجارة وهم بليين يا مناسبة عيدة ومدة قرن كتمريد Somaliland وحلا عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير وحن كلو فرحة عيد لو داقيان ربا إن هلكن كسلامه هو يدايق علي صهودن عثمان حاج أحمد يدمان ولا الله فامليجا حاسكيجا دمان تود وحن ليه الله ينقي يلكون عيد ده عافيمات برواقية بش كو قاعدة بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان ددوينها الصومالي ده ملك استاي جوجتو وحن ليه مسلمين تها عيد مبارك كل عام وأنتم بخير gaar ahaan kan waxaan uga faa'iideysanayaa oo aan ciidda farxadda awoodeed kula wadaagaya familygayga quruxda badan leh hooyaday aabahay walaalahay meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciideeda Allah inagu gaarsiiyo bash iyo barwaaqo waxaan kaloo halkan ciidda farxadda awoodeed kula qaybsanayaan kula wadaagaya xaaskayga aad ka jecelahay oo aan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair waxaan kaloo halkan fursadan uga faa'iideysanayaan ciidda la wadaagaya dadweynaha ku dhaqan magaalada madaxda Caynaba xarunta gobolka Saraar waan leeyahay ciideeda Allah inagu gaarsiiyo bash iyo barwaaqo meel kasta aad joogtaan iyo asxaabtayda kuwa jooga Sool jooga kuwa jooga Buuhood la jooga meel walba waxaan leeyahay ciideeda Allah inagu gaarsiiyo bash iyo barwaaqo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسلام يا مناسبة عيد الفطر أوجد مدحونها جمهورية Somaliland قرياش قرن كيكردون عيد ماذا قرن كيقرب كسيدة iyo waxaan kala salaamayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay joogaan waxaan kala iyadana ka salaamayaa asxaabtayda kala duwan meel kasta ay joogaan kuwa dibadda iyo kuwa dalka meel kasta ay joogaan cid kasta ay garanaysa waxaan iyadana maaragtay xanuunkan corona virus awgeed inaanay jirin inay maanta ciid la soo bixin oo dadku aanay maaragtay soo dhaxgelin taas waxaan maaragtay uga faa'iideysanayaa in xanuunkaasi sida maaragtay stay home in dadku ay guryahooda joogaan oo ay sidan oo kale ay maaragtay aanay sidan imika inagu baynu u nahay inuu u kala fogfognahay ay qaataan awaamiirta oo ay aad iyo aad maaragtay waddanka sida ugu jiro xaaladiisa ay u raacaan awaamiirta ay soo jeedinayso xukuumadda wasaaradda caafimaadka dhammaan waxaasoo dhan ay qaataan taasi waa fariin aan u farayo dhammaan jamhuuriyadda Somaliland oo dhan xarunka coronavirus masiibada adduunka oo dhan qabsatay awgeed بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan salaamayaa gaar ahaan faamiligayga qaaliga aana ugu horeyso hooyaday macaan xusnuur cali maxamed aabahay axmed bare sugule dhammaan walaaladay meel kastay joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa awlaadeyda iyo aabahood baan salaamayaa waxaan kaloon hambalyo ciideed oo farxadeed aan u dirayaa dhammaan bahda caafimaadka meel kastay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waxaan kaloo salaamayaa ardayda shaqo qaran dafcaddii koowaad dafcaddii labaadba aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo dhammaantiin meel aad joogtaanba ilaahay ha idinka yeelo kuwii horumar ballaaran uu maxaan sheegay u horseedo ummadda waxaan kaloo aan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay naga qaado xanuunka adduunyadii dhammeed kale maxaan sheegay kala karantiimeeyey ama kala xidhay waxaan leeyahay ilaahayow waan ku baryaynaaye cudurka caafimaad noogu bedel raxmaan raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak كل عام وأنتم بخير الله ينجا أقبل أعماش ونكسنيدا صوص سميني وحن كلا سلام يا دمان بحض عافمات كميل كستي جوجان وحن كلا سلام يا فاملي جي دمان تود والدي والألبا أنا وهو يرئيسين يا هو يرئيسين محمود حسن وحن كدر يا سنة لو معيدين قبيه لو قلت لك لين لو عيدو سبب شرا أوجود حنون كورونا فيروس أو سامية دموينها waxaan leeyahay allah inaga kor qaado xanuunka inta dhibanta allah u naxariisto inta noolaala ha ka kiciyo intooda xanuunsanaysa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan saxaafadda gobolka Saraar كل عام وأنتم بالخير إيد إلهي نجو قارسية باش برواقة waxaan u hambalyeeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo guud ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan kaloo u hambalyeeynaa dhammaan shacabka reer gobolka Saraar gaar ahaan caasimadda magaalada Caynabo oo leeyahay iideeda Ilaahay hay nagu gaarsiiyo bash iyo barwaaqo waxaan u hambalyeeynaa cid kasta oo muuqayga iyo magacayga garanaysa oo ugu hambalyeeynaa munaasabadda Ciid al-Fidriga awgeed waxaan u hambalyeeynaa dhammaan faaniskayga iyo asxaabtayda ku xidhan baraha bulshada aan ku leeyahay sida page-ka Facebook-kayga YouTube-kayga Instagram-ka iyo meel kasta oo aan isticmaalo waxaan leeyahay dumar kullu aam wa antum bil khayr sidoo kale waxaan u hambalyeeynaa inaan ilmaamine eheladayda qaraabadayda qoysaskayga meel kasta ay joogaan hambalyo khaas ah waxaan bartan uga dirayaa walaashay marna hooyaday dhiigayga Nimci Yuusuf Faarax Saad oo leeyahay dumar walaal iideeda Ilaahay nagu gaarsiiyo bash iyo barwaaqo walaalada ilmo Rashiid Cabdi Xasan dhamaantood shacayb ay la jooga iid mubarak kullu aam wa antum bil khayr waxaan kaloo hambalyo khaas ah iyagana u dirayaa koox iyaguna gobolka Saraar ugu suntan meel muhiim ah bahda warbaahinta gobolka Saraar مسلمين تملك تجوجان إحنا عيد مبارك دمان ملك تجوجان مسلمين تحلي عيد مبارك وحن سلامة يا دمان أهل كيجا يو أصحاب تيدا وحن سلامة يا كله محورنا جمهورية الصوماليلان وحن لي هاي إلى هاي عذر كان ذلك سامين إلى هاي يقدر القاضو دمان مسلمين تا إلى هاي تذكر عافية عيد مبارك عيد العافية إلى عيد بشوف بلغة نقول قارسيو بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وحنكو سلام يا مرك هوري مدحوينا iyo shicibka kadibna maanta waa maalin wanaagsan oo ciid mubaarak waxaan ka salaamayaa hooyada iyo aabahay iyo madaxweynaha iyo ciidamada jiida ilaahay horta marka ugu horeysa ma hadle waxaan ku suganahay anigoo aqoonyahan jaamac ilmi Siciida xarunta gobolka Saraar ee Caynaba magaalada waxay tahay magaalada Caynaba halkan waxa wali ku diraya ciid al-Fidrida caamul islaam gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan ummadda reer Caynaba ee aan u ahay aqoonyahanka oo aan leeyahay ku gaar ciideeda ciid mubaarak waxaan halkan wali ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda gole qaran golaha guurta baarlamaanka wasiirada xisbiyada mucaaradka ayaa halkan wali ugu dirayaa leeyahay ku gaar ciideeda barwaaqo iyo bash waxaan halkan wali ugu dirayaa qaaliya dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland dhammaan qoraayada awaanada ciidamada qalabka sida egeesiyaasha ay ugu horeeyaan ciidanka jiida hore aan leeyahay sanadka ku gaala bisha barwaaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday aabahay dhammaan ehelkayga familygayga cidii magacayga muuqayga garanaysa inankayga xaajkayga waxaan leeyahay ciid mubaarak الرحمن الرحيم halkan waxaan ugu hambalyeeynaa ummadda muslimiinta meel ay joogaanba gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak meel ay joogtaanba aad iyo aad baan idin salaamayaa munaasabadda ciid awgeed waxaan halkan isna aan u marinayaa
salaan ubadka caruurtayda iyo faamiligayga iyo dhammaan inta magacayga muuqda garanaysa marxib kullu caam wa antum bikhair sanad guuro wacan dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan Jamhuuriyadda Somaliland ayaan hambalyaha ugu dirayaa qoyskayga intii garanaysa magacayga muuqayga waxaan leeyahay sanad guuro wacan sanadkiisa ilaahay bashasho barwaaqaha gaarsiiyo kullu caam wa antum bikhair waxaan hambalyada ciidda u dirayaa dhammaan shacabweynaha muslimiinta meel kasta ay joogaan aan leeyahay hambalyo gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu sii hambalyeenayaa shacabweynaha reer Jamhuuriyadda Somaliland waxaan halkan salaan uga dirayaa tahniyada madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka labadooda marwo golayaasha qaranka iyo dhammaan shacabka Somaliland bismillaahir rahmaanir rahiim ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khair waxaan halkan tahniyad u dirayaa dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan qoyskayga iyo familygayga waxaan halkan tahniyad u dirayaa abtiyaasha iyo habarahay ciid mubaarak dhammaanba ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khair waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka golihiisa wasiirada iyo dhammaan ciidamada qaranka ciideeda ilaahay farxad iyo bashbash iyo barwaaqo haynagu gaarsiiyo kullu caam wa antum bil khair waxaan kaloo halkan hambalyo salaan uga dirayaa hooyaday iyo aabahay iyo dhammaan walaalahay meel kasta kala joogaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khair waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ardayda shaqo qaran ee gobolada Somaliland kala joogta gaar ahaan ardayda gobolka Saraar مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى